saddex su'aal aan rabo inaan weydiiyo waxaa laga talagalay inay ka jawaabaan madaxda Soomaaliya. Su'aasha ugu horeysa markaa soo qaato waa waqtiga laga soo rarayo baarlamaanka Soomaaliya dalka Ethiopia oo Soomaaliya loo soo rarayo baarlamaankeena. waayo hadda baarlamaankeena waxaa laga xukumaa Ethiopia oo wada ognahay kulligeenba. mid wataa su'aasha labaad inaan weydiiyo rabo dowladda Soomaaliya waxay tahay waddanka Soomaaliya goormeen lacag loo soo daabaci oo laga gudbi doolarkan wax lagu kala iibsaday ilaa anaga ma nihin gobol ka tirsan Mareykanka. Soomaaliyana la dhahaa waddan baan nahay, nation baan nahay, dad weligood soo jiray baan nahay. marka taasna waa idin weydiin lahaa. ATM machine baa lagu rakibay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. ATM kaas marka ani ra'yi ahaanteeda ka dhiibto I don't know dadka kale ma aqaan laakiin ra'yiga say ila muuqato marka ka hadlo ATM kaas waxaa loo sameeyay madaxda Soomaaliya oo kaliya waayo dadka maanta awoodo inay kala baxaan ATM lacag waliba lacag dollar oo aan ahayn shilin Soomaali qof walba aqli la damiir lagu fahmi karaa cid loo sameeyo. ninka ugu liito ATM ka lacag kala bixi doono waa nin u taliya degmo ama waax gudoomiyaasha degmadu way kala bixi karaan laakiin shacabka dadka anigoo kale ah shacab ma kala bixi karaan waayo bahalkan door baa ka soo baxda lacag shilin Soomaali ma ka soo baxda. ninkii masaakiinka ahaa ee ninkii maaragtay rootiga gadayay ee ninkii dhuxusha gadayay ee ninkii burjikada qodayay iyo waxaas oo dhan waxba faa'iido uma laha only waxa faa'iido u leh in ragga shaqo loo abuuro faanka in liiska daayo iyo beenta lacagta lagu cunaayo waxaas oo dhan in liiska daayo dawladda u tashato shacabkeeda u dhuga nuglaato